anigu waxaan kusoo koobi lahaa dadka younger generationka ahi inaanay cidna sugin hadda waxa weeye qofkii wuxuu sugayaa qof kale inuu dalka arrimihiisa ka shaqeeyo siba dadka waaweyn baa la sugaya qof waloo qaangaadha statement gaadhay ama wax taray hogaamiyuu noqon karaa waxbuu qaban karaa waxaad qaban kartid qaba waa kow talabaad isballaari muwaadin noqo innaga waxayna dishay hadda qabyaalad hoose oo qofka jife yaraanu dhaafi karay hogaamiye saxana ma noqon kartid ummadna waxma tari kartid haddaanad laadhanayn yacni wax muwaadinkaas hooseeya ha qaadani wixii kaleba waa tahay ay is identity laakiin iyo ku qeexin muwaadinimada ha ku cad oo sanaysa aamintid asadal u aamintid because hadday qolo kala qaadno dalkii ismi karaya marka waa inaad state dalkaaga u aamintid oo u raacdid dee siyaasaddana lacag ha usoo doonani siyaasadda waxaa soo gala dad doonaya inay tujaar noqdaan meeshuna ganacsi maaha qofka doonaya inuu taajir noqdo waa inuu dukaan furto dahabshii lacag ka amaado halkaa tago laakiin ma aha by no means qofku lacag doonaya inuu siyaasadda soo gala maaha waayo meel siyaasadda meel mushaha lagu qaato oo dabadeedna qofku dee ummadda ugu adeego marka ma tahay adeega bulshadeed soo doono siyaasadda waxa tahay gariiri inaad taajir noqoto bilyaneer noqoto aad doonaysaa ka joog meeshaadii maahay waa mahadsanta